asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka gundhiga gool fm raadiyaha gool xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho waa arbaca ay taariikhdu ku beegan tahay 22 bisha Diseembar sanadka 2021 barnaamijka gundhiga gool fm waxaad maqashaan adaan oo kala maalin waliba marka laga reebo jimcaha qodobada aynu idiin hayno maanta waxaa ka mid ah Manchester City oo diyaar u ah inay dalab rasmi ah ka gudbiso mid ka mid ah xidigaha u ciyaara kooxda Arsenal. waxaan sidoo kale soo qaadi doonaa tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Xavi Hernandez waxa uu leeyahay hurdadii way iga guurtay wayna ugu adag tahay wixii ka dambeeyay kulankaas. Usmaan Dembele oo go'aansaday mustaqbalkiisu haatan ku joogo kooxda Barcelona. kooxda Real Madridna waxa ay weynaysaa 11 ciyaaryahan kulankeeda caawa ay ka horjeedaan Atletico Bilbao xilli marka uu sare u kacay kiisaska la xiriira COVID-19. Liverpool oo loo sheegay sababtaysan ugu guuleysan karin horyaalka Premier League. waxaan sidoo kale eegi doonaa kooxda kubadda cagta Liverpool oo laga wacay xidigii ugu horeeyay ee aadaya koobka qaramada qaaradda Afrika Mane baa baxay Masalax mise Naby Keita waxyaabahaas oo dhan aan eegi doonaa xubnaheenii barnaamijka ayaa sidoo kale qayb ka ah waxaan sidoo kale soo qaadi doonaa kulamadii caawa laga ciyaaraya tartamada kala duwan sida horyaalka La Liga iyo tartanka magacyada badan ee League Cup-ka barnaamijka waxaa si wada jira halkan idinkaga tabinaya Aliye Jaamac iyo Haaron Khasaaro waxaana dhanka farsamada markaasi ka qaabeynaya Sharmarka Cabdullaahi ku soo dhawaada gundhiga Gool FM waa hagaag dhageystayaal isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay barnaamijka gundhiga gool fm ayaynu sii ambaqaadeynaa iyadoo maanta kulan weyn oo ka jiro Conis degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir halkaas oo markaa lagu ciyaari doono kulanka ugu dambeeya ee semifinalka ama afardhamaadka Yakshiid iyo Warta Nabadda degmadii shala soo baxday oo Kenya xaleenay hambalyo shala u balan qaadno waxaan dhaana soo baxdeen kidii soo baxda hambalyadeedan siinayna hambalyan leena dharkiinley oo hal iyo eber markaasi kaga soo adkaatay kooxdii difaacanaysa tartankan Shangani marka dharkiinley aniga shalay waan idin sheegay cabsiya leedahay macnaha laga waa shaqaysatay sanadkan shaqadeedu waa qabsatay laakiin laftirkeeda fiyoore lagu soo dhaweyn doono Yakshiid iyo Warta Nabadda kii soo baxda soo dhaweynaysa final adag marka kulankaasi tabintiisaan aadi doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka ayay markan ciwaanadeena aan isxasuusino ciwaanadeena aadayna sidii aad horeba u taqaaniin aad la socoteen waa maalinkii saddexaad oo xiriira skorkaaga qoran ku qoran sida qoranaysa waa qoran yahay waxaas waa diiwaan gashan yihiin meeshaada ku diiwaan gashanaada in qodobadii aan galeynaa okay Manchester City oo diyaarinaysa inay dalab rasmi ah ka gudbiso mid ka mid ah xidig u ciyaara kooxda Arsenal xidig u ciyaaraan dalab ka gudbinayna Arsenal xidig u ciyaaray dalab ka gudbinay ee rabtaa horyal inay ku qaada rabtaa aad iyo aad waxaan sidoo kale eegi doonaa ninkii Xavi ahaa hogaamiyaha kooxda Barcelona Xavi Hernandez waxa markaasi uu leeyahay hurdadii way iga tagtay way ugu adag tahay inaan seexdaba wixii ka dambeeyay kulankaas inaan seexdo way ugu adkaanaysaa kuwa oo la baasadana jirinba kii oo Champions League laga reebay ma ahan kulan kaleeto oo la baasada loo geeyay ma jirin hurdada way ugu yarta way ugu adagta oo leeyahay hurdada way ugu adagta albaga seexanayna soo jeedna hurdada ay ku dhacday deeqal waxa loo geliyay ninkaas Xavi ah soo Carabiis iska basal cunaa deeqal waa loo geliyay waxa kaloo la leeyahay Liverpool oo loo sheegay sababta aysan ugu guuleysan karin horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan Real Madridna waxay weynaysaa 11 ciyaaryahan oo kooxda koowaad ka mid ah 11 ciyaaryahan oo leen aba kulanka caawa ee Atletico Bilbao ee La Liga markaas ka tirsan xilli ay sare u kaceen kiisaska corona ee ka dhex qarxay Los Blancos ciyaaryahan deeweysay Real Madrid joogto meel iska fasax taas tawa dheelayaan markaas ay ku leeyihiin Rajals anaga saddex qof anaga maqan 11 maqan lagu ciyaaro saddex digaa maqan cid iska yeelayso malaha waxaan way jadwaleysan yihiin maxaa la yiraahdaa tabinadooda shirkadaha wata maxaa la yiraahdaa TV tabinaya oo qandaraas ku galay
ملسكيلا ترتن كان وصعنا بريمير ليج لما جوجنا sidii horeba u shaaciyeen kooxihii markaas isku yimid maamulkooda waxaa kaloo leeyahay in Cusmaan Dambeel oo go'aan ka gaaray mustaqbalkiisa iyo halkuu aadi doono inuu sii joogo in kala mustaqbalka gaar maadaama bilii u dambeeyay sanadkan bal gelinay shaki sidoo uu Xavi Hernandez waxaan sidoo kale eegi doonaa wararkii dhanka suuqa kala iibsiga xidigaha kulamadii xalay la ciyaaray Barcelona oo 10 xidig oo kooxda Sevilla markaas guul ka qaadan weysay oo iyadoo Rose xitaa loo qaatay Arsenal laakiin waa dakeysay oo si tartiib ah u soo baxday semifinalkeena iska xaadirsay tartanka League Cup-ka kulamada caawa laga ciyaarayo tartankaas League Cup-ka min Chelsea Liverpool ilaa Leicester iyo Tottenham ayaynu sidoo kale eegi doonaa oo tartankaasi marka ciyaari doona waxyaabahaas oo dhan soo qaadi doonaa waxyaabahaas oo dhan kor istaagi doona maadaama kulan badan ay jira xitaa caawa la ciyaari doono kuwa Ingiriiska oo kale EFL Cup-kii ciyaareen oo xalay tool Arsenal oo cadaraha ka dhigaysa ay ciyaarayaan kulamo badan Serie A oo kale waxa ciyaarayso kooxda Napoli kamid ah oo ciyaarayso iyadana Milan waa ku jirta kooxaha ciyaaraya kooxdii Manchester United tababarkii dib ugu soo laabteen iyadoo muddo kadib markii COVID-19 albaabada loogu laabay xarunta tababarka dib loo furay 3 xidiga 10 daqiiqo kadib hadana baxaya la yiri Ronaldo waa laga shakisan yahay inuu haleelo coronavirus waxyaabahaas oo dhan eegi doonaa waa dhacdooyinkaas iyo kuwaas isla fiirin doonaa xilli Liverpoolna xidigii ugu horeeyay markaas ka tirsan Liverpool looga wacay koobka qaramada qaaradda Afrika Mane ba Salah ba mise waa Naby Keita xulka imawalla halkii ma shaqaysaa leerniyo Liverpool lane shaqa u taa xubnaani aan galayna markaan xubnaheeni joogtada ahaa ma dhihi kari moogta aniga kusima ahayn وجوكتو adinku joogtay idin aan ku sima ahay barnaamijku joogtay aan ku sima ahay abniyo ku sima ma la markay ma saadihin xubni joogtay idin ahaa barnaamij haas waay iyo bixi aan halkaas istaajin aad 3 maalin la joogtaa martuu ka baxday xubnaheeni joogtada ah dhigi kartaa ma todoba siimrosa moogta adu waxa siimrosa 5 waay kiina waxa uu leeyahay abtigeena 3 hadin saddex waliya saddex laakiin galka saddexdiisi saddex isku xiga ka dhigta labana waa dheerta ambitingaas aan leeyahay adile way sheekada soo qabsanayna maadaama sheeko lagu bilaabo jadwalka sida u maqnaab waa qasna anaga soo qabahay way sheekada noo soo qabo naag ku saabsan maanta sheeko oo hadad maqashid xiriir ku saabsan waay laba qof wax ka dhaxeeyeen oo laba qof ka dhaxeeyso lamaana ka dhaxeeyso ay qosaysaa waaya waxaan ku bilaabeynaa marka hore sheekada la socon murtideeda okay waxa laga baxaa sama waxa kala bixiysaa okay wiil iyo gabar ayaa wada ciyaarayay wiilkii waxa uu watay maryo aad u qurux badan gabadhana waxay wadatay xoogaa ninac wadat wiilkana waa dhar badan oo wuxuu watay qurux maryo qurux badan oo watay wiilkii waxa uu soo bandhigay gabadhii inuu siiyo dhammaan maryaha uu haysto oo quruxda badan si uu u bedesho ninaca ay wadato gabadhii intay isfiirisay ogolaatay tiri ninacaan soo mariltii soo maryaas quruxda badan ma siinaysiin diyaar waay dhaa ninaca ku siinaa maryahaasi laakiin wiilkii waxa uu sameeyay waxa uu qarsaday xoogaa maryo qurux badan oo asaga naftiisu meel u dhigtay intaan ani ugu fiican yihiin gadaal intaan ani ugu fiican yihiin oo qurxin masiin kariye inta ay dhigoreen halka gabadhiina intay soo bood wixii ninac ay haysay dhammaan ay wada siisay dhahdo qof walba gurigiisu aaday markay ciyaarta dhamaatay gabadhii waa si sanabad ay habeenka ku seexato oo noo walwal noo buuqay iyo macnaha waa wareejisan nicmo waa wareejis dhar qurux badan qaadatay bis wiilkii waxa uu sameeyay habeenkii dhan waa seexan waa wiilkii walwala ku furna oo aan ninacaanay inta ama sax u qarsato kala u qarsatay ninacaan qaar kuwan ka macaan ama qarsatay uu ku fikiraayo dafaraadil ku ka macaan qarsatay waxaan dhan ay ku siisay ku ka sii macaan mid u qarsan saa dharkan ku u qurux badnaaba ay sii qarsatay sheekada nuxurkeeda wuxuu yahay hadii aadan 100% siin karin kalsooni xiriirka qofka la dhaxeeyo
had iyo jeer waxaad ku noolaanaysaa inaad shakiso tuhun iyo walwala koronaanaysaa ama nanac ka macaan ama meel dhigtay dharka saa u kala reebato kala ama loo soo kala reebto nanaca walwala kugu jiraa sheekada aaminsan ahayn iyo maxaa qarsan maxaa qofkaas u duugan iyo marka aad kalsooni ka imaato jisim walwal ma ku noolaanaysid kurba misaarkiisii dadka walwala marka waxa meesha ka soo bixis dadka walwala kurbada hees waa dadka wax qariyo kurba meel idinta ayaga le mana kurba isku dilo ayaga le wax qarsada ayaga le dadku isku dilaan gacantooda isku dileen waayahay maxaa noo xiga marka ma gaaraba sooma ma ii xigto waayahay maamaayada hadda aan galno maamaayadu iska badan yihiin reer toorta naga ilaali reer toorta balansan maanta ma laga ilaalinayo reer toorta haddaa noo bilmisay anaga carabkeena u dalneedahe waxaa leeyahay mundul ninkii dhisaa ka weyn ilmana aabahooda ka weyn nin daad qaada maxaa dhihi jirin xumba cuskay waxaas waa la iska daayay nin daad qaaday waa ku daayaa lagu yiri macnaha maxaa xumba la cuskaha haruuna ka dhex galo nin daad qaaday xumba cugsay xumba dad cuskada ma badbaadin karaa daadka waaba qaadee macnaha loogu jeedo maxay tahay horta macnaha nin oo daad qaaday nin oo dhibaato ku jiro wax walba oo ku badbaadi karo sameynaa waa macnaha derbigaan uu qabsanaa xumbadii oo biyaha dhex socoto uu qabsanaa qofna ka taagan ma umaleys u qabsanaa nafaas marka taasi ka dhigantaa meesha ugu dambayso dagaalama macnaha ma faahayse nafta meesha rabtay ku geysay laakiin retorto waxay dhayn nin daad qaaday waa ku daayay intaad qaay waa ku daayay waxba isku mahaysin waxay sidoo kale ku leeyihiin sacmadow wixii caanihiisa caddee cibaara le maahino sacmadow wixii caanihiisa caddee cibaara le maahino waa la yaab waa waxa kaliya caano cad intee ku arkeen baltolo caano madow rabeyno sac maadaama uu madow caanaha inay madow noqdaan waxaan dad bin aadam yaa naag madow dhasha waxaa sidoo kale leeyahay waxaa leeyahay minii la yaabo yaasinka mamawa minii la yaabo yaasinka yaasinka qabso haddaa yaabtid iska jir asku gaarina karoon war iska jir isku gaarina ka fiican saas le waa macna mamaayadaadu ayaga haystaa maxaa kaa qaniye sac madow caanihiisa wixii caddee cibaar le mayno taasaa ii gadanbe sac madow wixii caanihiisa caddee cibaar le mayno okay nin daad qaaday waa isku daayay adoo qadaa ku ciyaar waa isku daayay nin daad qaaday waa ku daayay ma zaida igu meerisay nin daad qaaday waa ku daayay horiska horis ma amaande horiska ku qaarale maxaa sacmadow caanihiisa le maaha sacmadow wixii caanihiisa caddee cibaara le maahino horisa leedahay cibaara le maahino aaba ku jirta horis la-aana waayahay haye markan xigmad waxaa laleeyahay oraahyo maxaa la dhahaa xigmada u qabsada dhaka boo ku dhigaba isku mid le soo qabo waxaa leeyahay qari wanaaga aad samayso adiga haaruuna wanaaga aad samayso waxaad muujisaa wanaaga lagu sameeyey
wanaaga lagugu sameeyo muuji kaa dadka u samaysid ama wanaagaa samaysid qari wanaaga qofaa u samaysa qofaa maanta caawiso oo kale hadaad meel la istaagto gabaran ana caaliya ma jeedin ha haaruun na caawi shalay oo markuu ku faada ma xasuusatiin ha ana caawi anaa kiciye bii dhiiqada looga dhaqaa wax sad anaa keena daado laakiin markaa ay maado dhaho horta ma ogtahay haaruun ana macankeyga wuxuu ibar saan wadaadaho kala duwan wanaagaaga shay wanaagayga waa qari marka wanaagaaga qari wanaaga oo lagu sameeyay sheeg waa soo bixi banaankan waxa leeyahay qof walba geerida markay u imaato wuxuu qabsadaa waqti ayuu qabsadaa bas waqti dheeraad ayuu qabsadaa bas qof kasto oo waqtigaasi qabsadaa la waqtigan wuxuu qabsadaa culdaar okay maxaa kaaga baxaarta macnaha markuu la soo qabto ninkan waqtigiis markii oo la soo gaaro moodhaha macnaha qofka markay geerida imaato wuxuu leeyahay la dhahay yani nafta waxay leedahay waqti dheeraad waqti lagu daro oo ilaa dib igu dhig waa qalbaadkayga soo saxa markii waqti loogu daro waqti la siiyaa lahay oo lagu waqtiga wuxuu sameeynaa cudurdaar waqtiga cudurdaar sameeynaa wuxuu ku leeyahay meeshaan kugu eg tahay waqti kale lagu dari karo ma lahan inta soo qabsaleed waa soo qabsatay tusaale idin siinaa markii iskuulka dhiganayo ma arkino macalinka wuxuu sameynaya buwaagta 2 isbuuc 3 isbuuc qof exercise dhan ma la fiirinayo maalinkii u dambeysay wallahi maanta 10 ma jiray buwaagta keena exercise isbuuc halkii ka sii waya sixina hala keena qof wuxuu leeyahay macal waqti iyo qaw hada qora hada markii la bariya la iska rabaa بريدي وحليه waa mashquul meel oo dhiga cudurdaarkaas oo keena marka geerida markay imaato waqtiga geeridina waqti yara ay codsanay waqtigiina wuxuu sii sameeynaya cudurdaar sameeynaya aamusnaantu waa jawaabta kaliya qofka nacska la siiyo ay wax barta ama musnaantu waa jawaabta kaliya la siiyo qofka nacaska oo zaada waxba ogeyn maanta marka hada khaylna ka aamusto waxa la warkay nacaska ma wala khaylna wala buuska war ma afka xataa ma loo kala furiyaa alle waa istaanti u dambeysay baadilka ma dambeyn baadil lagu leeyahay si wanaagsan maamulka iyo awooda iyo hantida ma bedelayso qofka aad tahay balse waxay muujinaysaa shakhsiyadaada awooda hantida iyo maamulka iyo awood iyo hantida ma bedelayso waxaad tahay balse waxay muujinaysaa shakhsiyadaada aad ku shaqeynaysid muujinaysaa hadaa hanti leedahay qaabka u maareynaysid hadii maxaa la maamul aad leedahay dadka qaabka u maamulaysid taas adiga ka turjumayso laakiin taa magacaaga bedel ma noqonaysid Haarun la ahaan min noqonaysid Cabdi Faarax ma lagu dhahaa mar maamul iyo magac isku dirtay hanti yeelatid magacaaga le wadana qofkaaga le ahaani halaas ka bad ma igrabtaa waayahay inta sano way kaysama waa tahay markan waxaan sii guda galeynaa laba xidigo waa jawaabta dhageysan kaara waa maanta oo kale aba horeysa miya soo kala bartay hoosta iga soo gelisay waayahay maanta oo kale hadii aan eegno maanta waxay markaasi ku aadan tahay markii ninka la yiraahdo Zinedine Zidane uu markaasi ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or maanta oo kale 22 bishii December sanadkii 1998 Zinedine Zidane ayaa ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or waxaana sanadkaasi uu qaaday koobka adduunka horyaalka Serie A iyo sidoo kale Champions League oo wax ka qaban kartay markaas ma jirin Zidane oo wuxuu aatimo leh Zidane oo timo aysan bidaari aysan goosanin wali marka maanta oo kale 22 December 1998 ayay markaas ku aadaneyd markii tababare Zinedine Zidane
oo hadda tababaro ah markaasna ahaa ciyaaryahan uu ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican adduunka ee kubadda dahabka ee Ballon d'Or waxaana markaasi uu ku guuleystay koobka adduunka horyaalka Zari ee Talyaaniga oo UEFA uu la qaaday sidoo kale tartanka UEFA Champions League sidaas ayaana loogu gacan galiyay Zidane waaga suula intuu la ekaan Zidane oo madaxiisa hadal isku fiirin karo loo indha kuulan karo Timbroke waaga marka maanta on kale Zidane uga soo gudubno ii sheeg marka saaxiibada xidigaha markaasi na soo weydiinayaan oo jawaabta dhageysta markaas noqonay waxa inoo aadaysaa Mason Greenwood daayirka Manchester iyo Phil Foden daayir ay ka shidanta maanta saaxiibada waxay soo weydiinayaan Greenwood oo Manchester United ah iyo Phil Foden oo Manchester City ah xidiga goolal badan oo wax qabadka badan la rabaa Soomaa yaa kugu hormarayna John Greenwood waa magaciisa dhameystiran waa xirfadle Ingiriis oo kubadda cagta ku xamaasha waxaana uu dhashay 1 October sanadkii 2001 waxa uu weerarka uga ciyaaraa kooxda Premier League ka dheesha Manchester United iyo xulka qaranka Ingiriiska xidigan waa 20 jir October 1 2001 ayuuna dhashay waxa uu ku dhashay West Yorkshire halka la yiraahdo wadanka Ingiriiska dhererkiisu waa 5 feet iyo 11 inji weerarku ka dheelaa United waxa uu qaataa lambarka 11aad hadii aan eegno kooxda Manchester United ayuu xirfadiisa inta ugu badan ku qaatay waa kooxda Manchester United kaliya waxa uu ka soo baxay academiga kooxda Manchester United iyadoo xidigaha da'dooda ka hooseyso 22 jirada United uu soo ciyaaray kadibna uu soo dalacay kooxda waaweyn ee Manchester United oo hadda xilli ciyaareedkii afraad la qaadanayo haddaba Manchester United wuxuu u ciyaaray 123 kulan waxaana uu dhaliyay 35 gool ama 35 gool qaranka Ingiriiska mar baa loo wacay 2020kii hal kulan uu ciyaaray kadibna ilaa iyo hadda ma dheelin halkaas kulan kaliya ciyaaray wax gool ahna ma dhalin taas waxay ka dhigan tahay in xirfadiisa ciyaareed Greenwood uu dhaliyay 35 gool 35 gool xirfadiisa ciyaareed Mason Greenwood 35 gool koox u dhaliyay hay Manchester United uu dhaliyay dhinaca kalena hadii aan eegno xidiga la leeyahay halala barbar dhigo waa Phil Foden oo magaciisa xulkiisa wax gool oo ma dhalin hal kulan bisaab loo hal mar loo hal kulan u ciyaar bis halka kulan gool ma dhalin waxaan eegi doonaa Phil Foden oo magaciisa dhameystiran uu yahay Philip Walter Phil Foden isaguna waa xirfadle kubadda cagta ku xamaasha waxa uu dhashay 28kii May sanadkii 2000 waxa uu ciyaaraa qadka dhexena markaasi kaga dheelaa kooxda Premier League ka ciyaartay Manchester City laba kooxood daris ay u kala ciyaaraan labada wiil Foden iyo Greenwood sidoo kalena xulka qaranka Ingiriiska ay ka wada tirsan yihiin waxa markaasi uu yahay Phil Foden 22 jir isaga hal sano weyn leeyahay Greenwood hal sano Foden ka weyn waa jeexbeb jabiiriya sanadkii 2000 ayuu dhashay 28kii May halka 2001 uu dhashay Mason Greenwood waxa uu ku dhashay wadanka England Stockport halka la yiraahdo ku dhashay Phil Foden waana 5 feet iyo 7 inchi waa uu ka gaaban yahay Greenwood xogaa injiil dheer qadka dhexe ka ciyaaray kooxda Manchester City waxa uu xirtaa lambar 47 xidigan Manchester City ayuu isaguna ka soo baxay academigeeda oo inta ugu badan uu ku qaatay waqtigeeda waxaana uu markaasi ku qaatay 6 xilli ciyaareedkii lixaad ayuu markaasi qaadanayaa Phil Foden kooxda Manchester City 137 kulan ayuu markaasi dheelay Phil Foden waxaana uu dhaliyay 36 gool heerkiisa kooxeed qaranka Ingiriiska 2020kii markii ugu horeysay loo wacay ilaa 13 kulan oo ciyaaray 2020kii 3 kulan 2021kana 10 kulan 13 kulan oo ciyaaray 2 gool oo dhaliyay
36 gool iyo 2 gool waa 38 gool 38 gool iyo 35 ay kala leeyihiin weli waa yar yihiin 38 gool xirfadiisa Phil Foden kan 35 marka wuxuu dheeryahay 3 gool 3 gool kaliya dhigay laba xulka weli xul xumo dhal iyo hal koox laga dheeriyaa marka taas waa isbarbardhig markaas isku qalma xidiga markaas isku qalma weeyaan waaya waxaan xiga waa warbixinadii ciyaaraha inaan ciyaaraheen hore u galno ay noqonaysaa si markaasi saaxiibadan uga daba geeyno kulamo badan ayaa markaasi la ciyaaray kuwa kale waa la ciyaari doonaa wararkii dhanka suuqa warbixinadii ugu dambeeyay haye ku hormarna Angelida mar walba la horsiyaal bilow cashirka si fiican u qaadad wariyaankii hore Aston Villa Gabriel ayaa walaac ka muujiyay fursadaha ay kooxda Liverpool ku guuleysan karto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan Liverpool ayaa si adag u tartamaysa horyaalka xilli ciyaareedkan iyadoo haysata 41 dhibcood halka 3 dhibcood kaliya ay ka hooseyso hogaamiyaasha kooxda Manchester City laakiin xidigii hore ee reer England ayaa aaminsan in maqnaanshiyaha Mohamed Salah sidoo Mane ay ka qaybgalayaan in ay koobka Afrika inay u keeni doonto hoos u dhac kooxda Liverpool maadaama natiijooyinkeedii haatan u muuqdaan mid sare marka ay haysato Mohamed Salah iyo waliba sidoo Mane sidoo kale wuxuu arintaasi sii raaciyay inuu aaminsan yahay markay kooxda Manchester City ee kooxda Liverpool ay dhameystiran tahay aysan awoodeeda ay tahay mid waxba laga qaban karin marka City loo eego kaleeto xidiga fara badan kama baxayaan oo ma aadayaan ayuu yiri sidoo kale Chelsea iyadana hal xidig kaliya ayaa ka baxayo waa kooxaha kula dagaalamaya horyaalka ayuu hadalkiisa ku soo gabagabay waayahay haddii aan markaasi sii raaco isla Liverpool kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa kamid ah markaasi kooxaha ka xamaasho horyaalka Premier League ee baqdinta ka qaba in xidiga muhiim ah oo ka tirsan safkeeda ay ku weyso tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON la yiraahdo kaasoo markaa dalka Cameroon ka furmi doona bisha soo aadan ee sanadka cusub haddaba saddex ka mid ah xidigaha Reds ee kala ah Naby Keita oo Guinea markaa ka tirsan Mohamed Salah oo Masar matala iyo sidoo kale Sadio Mane oo qaranka Senegal u safta ayaa la filayaa in ay markaasi matali doonaan dalalkooda bisha dambe oo Liverpool ay ka faaruqi doonaan haddaba xidiga qadka dhexe uga dheela kooxda kubadda cagta Liverpool ee Naby Keita la yiraahdo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka tirsan kooxdaasi Reds markaasi looga yeero koobka qaramada qaaradda Afrika isla markaana lagu daray liiska horudhaca ah ee xulkiisa Guinea ee ka kooban 27 ciyaaryahan Keita ayaa markaasi ka hor imaan doona saaxiibkiisa ay ka wada tirsan yihiin kooxda Liverpool ninka la yiraahdo Sadio Mane oo markaasi ay ku wada jiraan amaba ay wada galeen groupka B ee koobka qaramada qaaradda Afrika sidoo kale xulka Guinea iyo Senegal oo Keita iyo sidoo kale Mane ka kala tirsan yihiin waxaa groupkaasi kula jira xulalka Zimbabwe iyo sidoo kale Malawi Mohamed Salah iyo Mane ayaa dhankooda la filayaa in maalmaha soo aadan looga yeero koobka qaramada qaaradda Afrika ee xulalkooda Masar iyo Senegal oo ay ka kala tirsan yihiin si kastaba ha noqotee muddooyinkii dambe waxaa jiray shaki markaa la gelinayay qabsoomidda koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON balse madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika ninka la yiraahdo Patrice Mustave ayaa shaaca ka qaaday in sidii la filayay uu u dhici doono tartanka oo aysan jirin wax shaki ah markaas laga qabay in AFCON uu qabsoomi waayo Patrice waxa uu leeyahay koobka qaramada qaaradda Afrika ee shakiga la geliyay sidiisii ku jadwaleysneed ayuu markaasi ku qabsoomi doonaa wax markaasi dib u dhacana kuma iman doono taasi waxay ka dhigan tahay in bisha dambe uu markaa tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika ka furmi doono dalka la yiraahdo Cameroon dhanka kalena kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa in xidiga kooxda Arsenal Nuno Tavares ay u calaamadeysatay bartilmaameed macquul ah 21 sano jirkan ayaa Emirates Stadium ku soo biiray oo kaga soo biiray kooxda Benfica xagaagii la soo dhaafay wuxuuna boos joogto ah ka helay Gunners xilli ciyaareedkan isagoo u saftay 14 kulan tartamada idin
xidiga reer Portugal ayaa Arsenal kula jira heshiis gaaraya ilaa 2025 laakiin Manchester City ayaa awoodi doonto ama rabto inay saxiixaan qaadato si ay u burburiso qandaraaskiisa xagaaga soo aadan ama suuqa soo aadan ee January. wargeysida ayaa sheegay in Manchester City ay marar badan daawatay qaab ciyaareedka quruxda badan xidigani uu ku jiro. Pep Guardiola ayaa u arko in bedelka xidigii hore ama xidigoodii oo ku xiran Lionel Messi bedelkiisa ay u aragtaa maadaama kiiskii kufsiga ay waxaan seeto ku sii dheeraanayso waliba hadii la soo daayo xitaa uusan ku soo laaban doonin Manchester City. warbixinada kale waxaa markaasi kamid ah kooxda kubadda cagta Manchester United waxay markaa ku soo laabatay tababarka saddex kamid ah xidigaheeda ayaa baxay baa leeyahay 10 daqiiqo kadib markii ay yimaadeen xarunta tababarka. Ronaldo Cristiano waxaa markaasi looga shakisan yahay inuu haleelay caabuqa coronavirus oo weli markaasi kooxdu ay qarinayso. warbixin arintaasi ku aadan ayaynu markaa dul istaagi doonaa. dhowr xidig oo markaa kamid ah kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa markaasi ku soo laabtay xerada tababarka kooxda United ee la yiraahdo Carrington kadib markii garoonka tababarka loo xiray sabab la xiriira faafaha COVID-19. Red Devils waxaa markaasi loo baajiyay 2 kulan oo ay markaa la kala ciyaari lahayd naadiga Bamford iyo sidoo kale kooxda la yiraahdo Brighton and Albion kadib markii ay ku soo hareen kaliya 7 ciyaaryahan oo ay soo xulan kareen oo available u ahaa. inta kalena markaasi la kala diray oo karantiil markaasi la geliyay markii laga shakiyay in caabuqani uu markaasi ku dhacay. waxaana la leeyahay hadda xarunta tababarka Manchester United Carrington ay markaasi dib markaa loogu soo laabtay oo albaabada markaasi loo furay. haatan xidigaha uu hogaamiyo macalinka la yiraahdo Ralf Rangnick ayaa markaa dib ugu soo laabtay tababarka waxaana ay isku diyaarinayaan kulankooda toddobaadka soo aadan ay la leeyihiin naadiga Newcastle United ee markaasi ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska. si kastaba ha ahaatee qof kasta ma joogin muddo dheer tababarka kooxda Manchester United markii dib la isugu soo laabtay. dhab ahaantiina 3 kamid ah xidigaha ayaa markaasi joogay kaliya 10 daqiiqo. Luke Shaw ninka la yiraahdo Jesse Lingard iyo Mason Greenwood ayaa la arkay iyagoo markaasi imaanaya tababarka balse 10 daqiiqo kadib ayaa mar kale la wariyay inay ka baxeen xarunta tababarka kooxda Manchester United. tababaraha United Ralf Rangnick ayaa markaasi isagoo xataa lagu arkay isagoo saaran kursiga dambe ee gaarigiisa isagoo wajigu markaa u duuban yahay maadaama qabow badan uu ka jiro Ingiriiska. waliba isaga iyo xubin kale ayaa markaasi oo shaqaalaha kooxda ka tirsan ayaa gaarigaasi wada saarnaa. Marcus Rashford ninka la yiraahdo Rafael Varane Scott McTominay Verratti iyo Joan Mata ayaa sidoo kale kamid ahaa xidigihii maanta dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Manchester United. yeelkeeda dhammaan ciyaartoyda Manchester United ma aysan soo xaadirin tababarka. Cristiano Ronaldo, Donny van de Beek, Paul Pogba dhaawac ku maqan, Diego Dalot, Jadon Sancho, Phil Jones iyo sidoo kale Tom Heaton ninka la yiraahdo iyo Dean Henderson ayaa dhammaantood aan lagu arag tababarka kooxda Manchester United markaasi dib u soo laabtay. waxaa jira marka warar sheegaya in Cristiano Ronaldo looga shakisan yahay in caabuqa coronavirus uu markaa ku dhacay balse ilaa iyo hadda war lagu xaqiijinayo arintaasi lama soo warin halka kooxduna aysan wax bayaan ah ka soo saarin. warkan la isla dhexmaraya ee sheegaya in CR7 uu ku dhacay COVID-19. xidiga Ousmane Dembele ayaa go'aansaday inuu heshiiska u kordhiyo kooxda Barcelona una sheegay wargeysyada ka soo baxa dalka Ingiriiska. xidiga reer France ayaa go'aansaday inuu qandaraaska ugu duubo dalab namiiska u saaro kooxda uu sii joogayo Barcelona balse uu ku qasban yahay inuu hadda mushaaraadku qaato kasii dhimi doono hadduu qandaraaska u kordhiyo. wakiilka Ousmane Dembele ayaa riixaya inuu ka tago kooxdaasi sidoo kale tana doonayo inuu mushaaraadka badan hadaysan siinaynin inuu iskaga baxo kooxdaasi uu ka tago si uu aado kooxaha kale ee dalabka ka gudbinaya. dhanka kale Ousmane Dembele ayaa u muuqda mid dib u helaya qaab ciyaareedkiisii fiicnaa lagu yaqaanay maadaama ciyaarihii u dambeeyay oo joogto u ciyaarayay sidoo kale natiijooyinka kooxda ay gaaraysan si fiican uga caawinay. waayahay warbixinada kale waxaa markaasi kamid ah oo barnaamijka Gundhiga Gool FM aan kugu soo gudbinayno. kooxda Real Madrid waxa ay weynaysaa baa lagu leeyahay 11 ciyaaryahan
oo safka hore ee kooxda koowaad ka tirsan kulankeeda caawa ay la leedahay Athletic Bilbao xilli markaasi ay sare u kaceen kiisaska coronavirus. haddaba waxaad isweydiinaysaa bal caawa yaa u ciyaaraya kooxda Los Blancos lagu ninaasay cadcadka maadaama 11 ciyaaryahan lasoo warinaya inay maqan yihiin kulanka caawa. aan eegno xidigahaasi magacyadooda iyo markaasi sababaha ay ku kala maqan yihiin. Real Madrid ayaan heli doonin 11 ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda koowaad ee horyaalka La Ligaha Spain markaasi ka horjeeda caawa naadiga Athletic Bilbao. Athletic Bilbao 11 ciyaaryahan ma heli doonto oo safkeeda koowaad ah kulankaasi horyaalka La Ligaha ee Bilbao ay markaa la ciyaari doonto Real Madrid. Los Blancos waxay la il daran tahay COVID-19 ka dilaacay kooxda dhexdeeda iyadoo markaasi diiwaan geliyay 8 ciyaaryahan oo laga helay caabuqa toddobaadkii la soo dhaafay. 8 ciyaaryahan ayuu nooga dhacay bay leeyihiin oo ay shaaciyeen toddobaadkii la soo dhaafay. kooxdu markaa waxay xaqiijisay in David Alaba iyo Isco inay yihiin kuwii ugu dambeeyay oo haleelay viruska coronaha iyadoo markaasi kula biiray liiska xidigii hore u qabay Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Gareth Bale, Rodrigo iyo ninka la yiraahdo Andre Lonin. dhinaca kale Modric tan iyo markii uu ka soo laabtay coronavirus waxa weli markaasi sii jiray calaamado kale oo xanuunkan muujinaya oo uu qabo waxaana uu seegi doonaa oo la xaqiijiyay kulanka caawa ay Real Madrid ku ciyaari doonto garoonka San Mamés la yiraahdo ay ku ciyaarto Athletic Bilbao iyadoo Dani Carvajal iyo sidoo kale Dani Ceballos ay haatan dhaawac markaasi ku maqan yihiin halka Casemiro uu ganax ku maqan yahay. tababare Carlo Ancelotti ayaana waayi doona 11 ciyaaryahan oo kamid ah kooxda koowaad kulanka ugu dambeeya oo kooxdiisa Los Blancos ay caawa ciyaaraysa sanadkan 2021 kulanka ay ku macsalaameynayaan sanadkan ee ugu dambeeya waxa markaasi ay ku ciyaarayaan San Mamés. Athletic Bilbao ay markaasi la balansan yihiin. Carlo Ancelotti tababaraha Real Madrid waxa uu weyn doonaa 11 ciyaaryahan. haddaba kooxda reer Spain sidoo kale waxa markaa iyana ay weyn doontaa oo kulankani ka maqnaan doona kaaliyaha tababare ninka la yiraahdo David Ancelotti kaasoo sidoo kale isna laga helay caabuqa coronavirus. caabuqii laga helay COVID-19 dhanka kale tan waxaa la leeyahay Barcelona ayaa dalabkeedii ugu dambeeyay oo warsaxan ka gudbisay Ferran Torres kaasoo xidigan reer Spain ahaa maadaama suuqa January soo aadan bay aad doonayso walow ay jiraan warar badan oo sheegay in heshiis hoose isla gaarin labada kooxood isagoo ciyaaryahanka muujinaya inuu u baahan yahay inuu ku biiro Barcelona maadaama uu dhahaybo riyadeedii waaye oo mar ay rumoowayso. Manchester City ayaa ku doonayso lacag dhan 60 milyan oo euro halka ay ku doonayso kooxda Barcelona inay ku qaadato 45 milyan balaas inay markay qaadato kadib ay soo dhaayso xataa soo dhameystiraysa 45 milyan ay ku qaadanayso miiskan waxay u saaran kooxda Manchester City inay ku doonayso 60 milyan oo euro waxaana jira xidiga badan oo bisha January la xiriirinaya kooxda Barcelona inay qaadato maadaama Ferran Torres uu yahay bedelka kaliya ee Aguero hadartan u muuqda maadaama weerarkaba ay kaliya kooxda Barcelona. kooxda kubadda cagta Barcelona iyo sidoo kale Arsenal oo ciyaaray hadii aan dulmar markaa ku sameeyno Barcelona dhibco kale ayay lumisay xalay gool iyo gool ayayna la dhaafi waayeen Sevilla oo markaasi qaadatay calaamada casaanka ah ninkii ahaa Jules Koundé ayaa kubad markaa wajiga kaga dhuftay xidig kooxda Barcelona ah oo aad u carooday ciyaartu markaasi mareysay gool iyo gool iyadoo Gomez uu markaasi goolka hore ugu shubay kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana goolkaasi caawintiisa lahaa Ivan Rakitic oo hore markaasi ugu soo ciyaaray kooxda Barcelona. waxaa markaa Barca ay la timid dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta goolka barbardhaca ah waxaana markaasi goolkaasi madax u dhaliyay ninka la yiraahdo Araujo oo isagu cross ka helay Ousmane Dembele. haddaba fursad dahabi ah ayuu Dembele mar kale lumiyay dhamaadkii qaybtii hore iyadoo birta uu garaacay kubad markaasi ay gool ku heli kareen
oo markaa ay ku adkaan kareen laakiin kulanka ayaa markaa barbardhac kusoo dhammaaday waxaana laga baqdin qabaa in Barcelona ay markaa ku dhammaysato meel ka baxsan booska loogu soo baxo Champions League xilli ciyaareedkan maadaama meel fog ay joogaan oo haddaba kaalinta 7aad malaha ilaa 8aad meelahaas ku ogaan eego kaalinta 7aad ayay markaas joogaan iyagoo leh 28 dhibcood Barcelona marka waxaa laga badan qabaa in ay soo gelin weyso booska loogu soo baxo koobka horyaalada qaaradda Yurub ka qaybgalkiisa warbixinada kale waxaa markaas kamid ah ee kulankaasi la xiriira waxaa markaa kulankaasi laga soo calaamadeeyay Gavi oo waxaa la arkayay aan markaasi xargaha kabihiisa aan xirnayn maxay tahay sababta baa la leeyahay ninka la yiraahdo Mark Marba waxaa markaasi uu shaaca ka qaaday in Gavi uusan xargaha kabihiisa inta badan iyagoo iska furan oo isaga ciyaaro uusan aqooninba sida markaasi loo xirto taasi ay keentay in isagoo xargaha iska furan uu isaga dheelo waxaan arkaynaa xalay dhowr jeer markii foulka lagu galay isagoo ahaa xidigii foulada inta ugu badan lagu galay xargaha kabihiisa oo furan Gaviiraha Barcelona haddaba Mark Marba waxa uu leeyahay Gavi waxa uu markaasi ku ciyaarayay xargaha kabihiisa oo aan xirnayn tan iyo markii uu aadka u da'da yaraa sababtoo ah isagoo ma garanayo in si fiican markaasi kabaha xargaha loo xiro danna kama lahan midaasi sidaas ayuuna mar walba ugu ciyaaraa marka hadduu xir isku dayaxta ma yaqaan qaabka loo xiro Gaviire aad u da'yar yahay marka kabihii dhulkana waa u dhow yahay hadduu dhaco waxba kama dhibeyso badanaa waxaan dhahnaa xargaha haddii aan kabaha si fiican aad u xiran waa ku kufaysaa laakiin isagu kuma dhaco ilaa isagoo qof uu ku dhaco ama la faawalo isagoo dhulka ku dhacayna lama arkin Gavi xargaha kabihiisana waa kuwa mar walba furan oo kabihii xargiyo iskaga furan oo isaga ciyaara sidii xalayba ugu dambeysay kulankii Sevilla aan ku arkaynay warbixinada kale ee la xiriira kulankaasi kooxda Barcelona waxaa markaasi kamid ah ninka la yiraahdo Xavi Hernandez waxa uu leeyahay tababaraha kooxda Barcelona hurdada waa ay markaasi igu adag tahay buu leeyahay wixii ka dambeeyay kulankii xalay ee Sevilla ma seexduu leeyahay hurdadii way iga guurtay hurdayari ay soo wajahday kulankaasi kadib waan seexan kari waayuu leeyahay tababaraha kooxda Barcelona macalinka kooxda kubadda cagta Barcelona ee wadanka Spain ka dhisan Xavi Hernandez waxaa markaasi uu sheegay inuu aad uga xun yahay natiijadii barbardhaca ahayd ee gool iyo gool oo ay kooxdiisu xalay la gashay naadiga Sevilla kulankaas oo ahaa midkii afraad ee horyaalka La Liga ee baaqday sabab la xiriira COVID-19 ciyaartan waxaa markaa ay ka dhacday hoyga Andalusiyiinta ee la yiraahdo Roman Sanchez waxaana goolka Sevilla dhaliyay daqiiqadii 32aad ciyaaryahanka la yiraahdo Pau Gomez halka goolka barbardhaca uu madax ku dhaliyay xidiga kooxda Barcelona ee Ronaldo Araujo haddaba ninka la yiraahdo Xavi Hernandez oo uu waramayay wargeyska Marca ee ka soo baxay Spain waxa uu yiri dareen isku qasan ayaan dareemayaa macaan iyo kharaar baan dareemayaa waa igu adag tahay inaan hurdo maadaama ay ahayd in kulankaasi aan guul gaarno oo aan guuleysano maadaama ay ahayd hurdadu way ugu adag tahay leeyahay waa inaan isdejinaa ciyaartii Sevilla qaybtii hore aad baan u wanaagsaneyn naadigeenu xoogaa horumar ah ayuu sameynayaa wax wanaagsan ayaan qabanaynaa buu leeyahay maanta oo kulankii xalay uu kala jeeday aad baan markaasi ugu baahnayn guul si aan u istaagno booska loogu soo gudbo koobka horyaalada Yurub waana ku faanaynaa naadigan inkastoo barbardhac markaasi aanu galnay nasiibku nooma heelin waayo kubadii Usman Dembele waxay markaa ku dhacday birta waxaanan la dheelnay buu leeyahay koox weyn oo uu Sevilla kala jeeday hadalkiisa sidaas uu ku soo gabagabeeyay Xavi Hernandez oo sheegay in kulankaasi kadib uu markaasi hurdadu ay ka soo dhiclaadahay hurdaduna ay ku adag tahay warbixinada kale waxaa markaasi kamid ah kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyana xalay markaasi raaxaysatay ilaa 5 gool ayay markaa kaga adkaatay kooxda Sunderland oo markaa waa 5 gool iyo gool kooxda Sunderland oo markaa marti u ahayd Nketiah ayaa kulankaasi 3 ley saxiixay waxaana ahayd 3 leydiisii ugu horeysay ee xirfadiisa ahaydna 3 leydii ugu horeysay oo kooxda Arsenal uu dhaliyo Nketiah ayaa goolka hore bilaabay Nicolas Pepe ayaa u labeeyay
hal gool ayay markaasi soo celiyeen wiilasha Sutherland waana goolka qoray ciyaartaasi ka dhaliyeen 31 daqiiqo. Nketiah ayaa 3 gool iyo gool ka dhigay, mar kale Nketiah ayaa isaguna 4 gool iyo gool ka dhigay. Nicolas Pepe ayaa caawino badan sameeyay. dhamaadka ciyaaryahanka la yiraahdo Batino oo isagu da'yar ahaa soo galay. Nicolas Pepe ayaa sidoo kale gool wacan markaasi ka caawiyay oo dhamaadka ciyaarta kulankii ugu horeeyay gool markaasi dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Batino. Batino waxaa leeyahay isagu ma dhalan markii kooxda kubadda cagta Arsenal ay markaa bilaabaysay horyaalkii ay guuldaro la'aanta ku qaaday unbeaten-ka iyadoo dhinaceedan dhulka la dhigin ay ku guuleysatay. waa 18 sano jir haatan Charlie Batino xilligaasi ma dhalan, laakiin isla horyaalkaas markay qaadayeen ayuu markaasi dhashay. shudkii ugu horeeyay ama laadkii ugu horeeyay tuuray kulankii xalay ee ahaa kulankiisii ugu horeeyay Arsenal oo u ciyaarana gool ayuu markaasi ku dhaliyay. waxaa leeyahay waana aad u nasiib badan yahay xidigan. sidoo kale warbixinada kale la xiriira kulankaasi haddii aanu eegno, ninka la yiraahdo Charlie Batino waxa uu sidaas ku noqday da'yarkaasi goolka dhaliyay xalay goolkii ugu horeeyay Arsenal. da'yarkii 10aad ee Arsenal ka tirsan ee gool dhaliya kulankiisa ugu horeeyay ayuu noqday ciyaaryahanka la yiraahdo Batino. waxay leeyihiin waa xidig ka fiican Aubameyang mar walba hana loo safo. Nketiah oo 3 leey saxiixana waxay markaasi ka dhigan tahay in 10 gool uu dhaliyay 9 kulan oo ciyaaray Carabao Cup. marka waa xidig u soo baxay ay leeyihiin Carabao Cup kale lagu cabo ninkan ama League Cup-ka tartan yarahaasi lagu cabo. Nicolas Pepe waxa uu markaasi dhaliyay goolkiisii 26aad ee Arsenal boqolkiisi kulankiisii boqolaad ee Arsenal ayuu markaasi dhaliyay goolkiisii 26aad ee kooxda Arsenal ee u dhaliyay xalay ayuuna markaasi saxiixay 72 milyan le Nicolas Pepe. warbixinadaasi ayaa markaasi la xiriiray amaba arrimahaasi ayaa laga soo calaamadeeyay kulankii Arsenal xalay ay markaasi u soo gudubtay semi-finalka ama afar dhamaadka. waxaana markaa Arsenal ay sidaasi ugu soo baxday Gunners afar dhamaadka markii ugu horeysay tartanka League Cup-ka ay u soo baxday tan iyo xilli ciyaareedkii 2017-2018. afar dhamaadka ayay markaasi u soo gudubtay kooxda kubadda cagta Arsenal markii ugu horeysay afar dhamaadka League Cup-ka ama semi-finalka League Cup-ka tan iyo xilli ciyaareedkii 2017-2018. Nketiah ayaana wacdareeyay iyadoo goolkiisa 3 leeyda amaba saddexaad oo 3 leeyda ku dhameystiro uu ahaa cirab qurux badan oo uu ka caawiyay Nicolas Pepe. warbixinada kale waxaa markaasi kamid ah kulamada marka laga ciyaarayo horyaalka Ingiriiska kulamada laga ciyaarayo ayaa aynu eegaynaa. horyaalka Ingiriiska kulay ma jiray waa koobka la yiraahdo EFL Cup ama Carabao Cup-ka. caawa kulamada jira Bamford iyo Chelsea ayaa balansan 5 saac oo rubi dhiman ayay kulamadan dhamaantood soo gali doonaan 5 saac oo rubi dhiman. Bamford iyo Chelsea sidoo kale Liverpool ayaa markaa soo dhaweynaysa Leicester City. Chelsea waa marti oo waxay booqanaysaa Bamford, halka Tottenham ay qaabilayso kulan London derby ah naadiga West Ham United oo ay soo dhaweynayso. kulamadaasi semi-finalka in koox waliba ay u gudubtay doonaysa EFL Cup-ka ama League Cup-ka ama Carabao Cup waxa doontid badhahe 4 saac iyo 45 daqiiqo habeenimo ayaana kulankaasi la baasan doonaa. dhinaca kale horyaalka La Liga kulamada laga ciyaarayo waxaa markaa kamid ah Granada iyo sidoo kale Atletico de Madrid ayaa balansan oo 3 saac kulankooda la baasan doonaa. sidoo kale Real Madrid ayaa 3 saac waa 5 saac iyo bar markaasi iyana ciyaaraysa oo Atletico Bilbao ay markaasi booqan doontaa. kulankan waxaa markaasi hareeyay dhaawacyo iyo sidoo kale coronavirus kooxda kubadda cagta Real Madrid oo kulankaasi 11 ciyaaryahan ayaa markaasi ka maqnaan doona sidaan horeyba idinkugu soo tabinay. markan waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan markaa aadaynaa halka tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo ka soconaya waa garoonka Ex-Conis degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir. halkaas oo markaasi dhawaan laga baasanayo kulanka u dhaxeeya degmooyinka Yaaqshiid iyo Warta Nabadda ee semi-finalka ugu dambeeya, isla markaana kooxdii adkaatay ay gaari doonto finalka, isla markaana la ciyaari doonto kooxda Dharkeenley ama degmada Dharkeenley. Burhaan qadka ku jira. Burhaan meena maqashaa?
هذا أكو مغلا قصار وأي مقطع علينا si wanaagsan aan ku maqlaa tabinta tooska ah ayaa markaasi hore usii geli doontaa barnaamijkii gundhiga gool FM aan jecelnahay inaan intaa kusoo gabagabayno caaliye iyo Haroon Qasaar aan idinla socodsiinaya dhanka farsamadana Sharmaarka ka qaabeynayay tan barnaamijkan kiisa xiga dib u kulmayna nabadgelyo waxaan markaa idinku duwayaa tabinta tooska iyo Burhaan adiga waa ما سنتهي هارون قصار يا عاليو كلهم وعنا أكسن دتك نمغلا يوم الكسوي شوكتاني سبل